قصة دعدي هذا الذين شيء إسلام كده حديث waxay dadka dalabada cilmiga ama jaamacadaha dhiganayeen ama taariikhda wax ka dhageystay ay garanayeen dagaal la yiraahdo maqasheen al-Qaadisiyya oo Sa'd ibn Abi Waqqas uu hogaaminayay sheekada ma maqasheen waa sheekada dadka ay garanayeen Iraq bas dagaalka ka socday Sa'd ibn Abi Waqqas waa nin dadkii 10 ka ahaa oo nabiga hal mar jannada ugu bishaareeyay kamid ah asagoo baxdimo adag ay ka soo baxeen dagaalkiina uu socdo si uu u fadhiyo dagaalkiina ma gali kara mana istaagi kara faraskiisii guriga hoostiisa ku xiray gurigi uu joogay guriga korkiisa uu fuulay waa tacbaan dagaalku halka ka fiirsana waxa jiray oo ciidanka muslimiinta kamid ah nin la yiraahdo Abu Mihjan al-Thaqafi wuxuu u xiran yahay waa nin muslima jihaad uu soo baxay khamrana laga kari way khamrada waa bay mar walba waa la soo garaacay jeedalo badan baa lagu dhuftay khamradii waa laga kari way uu xiri marka Sa'd dagaalkani waa socdaa Sa'd guriga korkiisa uu ka fiirnaa dagaalkii oo socdo ma dhaqaaqi karo Abu Mihjan wuxuu arkay dagaalkii oo socdo muslimiintana dib badan loo geysanaya waa ciilowdi waa ooy islaanta Sa'd buu la hadlay oo wuxuu yiri waa maanta dulli way yiri maanta aniga meeshan ku xiran muslimiintana saa loo galay waa dulli magaca ilaahay baan ku dhaarnaa ballan iyo ahdi baan qaadi inaan haddaan dhinto oo dagaalka ku dhinto waa iga raaxaysateen laakiin haddaan dagaalka ku dhimanin inaan xaragaan isku soo xiro birtaan aan isku soo xiro ballan ilaahay baan ku qaadayaa xarag iga fur dagaalka aan galay خمر عبية وحونه حناقسيه هاي دقالك إنه قال حاولتي سعد لما يتشنن حرقي باي كفرتي فرسك سعد وماشي تاجن وبلغال ديه جري أيو كود دقي مركزو دقالك قالي ميل الله جيسكي ودقالك كقلبة قال دي ويجبايين dadkii waxay leeyihiin hormalagan xagees nooga imaaday malaga kan xagees nooga imaaday gees alla geeskii uu dagaalka ka gala way jabayeen gaaladii Sa'd meeshuu saaray wuxuu arkay ninkan nooc uu dagaalamay faraska dagaal cilintii rogaal cilintiis wuxuu yiri faraskaana waxaad moodaa faraskaygi ninka dagaalamay Abu Mihjan baad moodaa Abu Mihjan hoostaydu ku xirna muxuu yahay arintan maxay tahay gaaladii waa la jibay oo soo noqday ماشي بيسكو سوحري إسلامتي سعد بيوشك أرنت دعضي سعد مركو قضية دعدي وننكي وسمي مركو أوغادي وحيد والله إن المرضى ما حد كان أوفيني نبوير وأنك خمرة لك عباي خمرة عبها وتبر والله إن حد ما كان أوفيني نبوير أسنا وحيري markii hadda liiga oofina li garaacay khamrada waan cabay anna waxaan wallahi ku qaadi biir inaan mardan cabaynin hadii mar xad baan liiga oofinaynin ninka asaga khamru cabay noocaasna uu ahay min ahli la ilaha illa allah uu ahay sida hadana wa ma'a dalika guushaas oo muslimiinta ka soo hooyay macna waxaan ula jeedaa dadka muslimiinta qofkooda hatta caasiga qof ma ahin la tuurayo oo laga tagaayo asaga oo caasi ayaa insha Allah khayr badan uu ku jira ahlu tawxiid ahlu la ilaha illa Allah arsalan maahin ayaan dhow qisada dhacdi oo taasha bay sadaan idin sheegay Nairobi magaaladii aan deganeen ayaa masjidkii magaalada ugu weynaayo jaamica ahay dhul banaankiisa oo muslimiinta lahaayeen ay gaalada inay xog ku qaataan tamciin dhulkii dagaal ay noqotay markii muslimiinta iyo gaalada in la dagaalamay noqotay dhagax baa la qaatay waa la isjiiday ninba wuxuu ii sheegay qof haweena islaan hindi u dhalatay wax nidaam islaamnimada asan ka maqonin wuxuu yiri hal dirac ay dhar ka qabtaa timaheedana way qaawan yihiin
dadkii muslimiinta dhagaxa aruursanayo oo gobolka meeshii difaacayeen ayay dhagaxyo intay kasoo buuxatay diris kasoo buuxisay diraceeda ayay meel jiiro ah oo waddo luuqluuq ah intay istaagtay ayay gaaladii meeshaa ka dhagaxyaynaysaa oy taaganta ay leedahay shuhuud bay leedahay wax kale ma lihin ilaa ay meeshii gaalo kasoo dhawaan weeyaan qof haween ah oo hal dirac dhar ka qabta oo timo qaawan ma u malayn laheed inaa islaamka wax weyn kusoo kabi macnaha waxaad arkaysaa dadka muslimiinta ah walaalnimadooda iyo midnimadooda xataa kuwooda cusaada ah in la soo dhaweeyo saxiix wixii danahooda halaynaya waa laga tirtiri waa loo sheegay waa la baraarujin laakiin inaan laga tegaynin asaga oo macsiyada laga reebaya asagoo la nadiifinaya kulligood inay walaalaha yihiin saa darteed bay mu'asasada ansaaru sunna danaha ay u imaadeen waxa ugu muhiimsanaad waxaa weeye midnimada oo walaalnimada ah oo muslimiinta ay walaalo yihiin sidaan idin sheegay itijaahaadka culammada dhammaantood inay la wada socdaan taa waa meel arrin yaroo kale haddaan idinku baraarujiya ayuha alikhwa cadowgeenna waa badan yahay dhinac walbana cadow baa naga jira waa nagula soo duulayaa bilaadeenna waa bilaad islaam waana lagu soo duulayaa waayihii hore haddii madfac iyo waxyaaba noogala soo duuli jiray nooc reer magaalnimaa noogala soo duuli waxa noogala soo duula waxaa ka mid ah mukhadiraad waxaa la yidhahaa daroogo mukhadiraadkaas dhulkeeni baa la keeni lacag baa nagala qaadan dahab iyo dollar baa nagala qaadi waxa noola keenayana waa cudur iyo jire waxa noola keenayo waa cudur iyo jire annagana raalli baan ku nahayo suuqaan ku iibsanaynaa ka warrama haddaad arki lahayd nin ilaahay xoolo siiyey oo dahab haysta wiilal iyo dad iyo gabdhana ilaahay siiyey oo badan loo keenayo cudur iyo sun gurigiisa la keenayo cudurka iyo sunta gurigiisa marka la keenana dahabka iyo dollarka ku bixinaya laga qaadanayo lala gidoomaya ilmihiisa wiilashiisa iyo gabdhihiisana u qaybinaya daroogadii iyo suntii iyo balaayadii u qaybinaya oo cunayeen markay xoogaa marqaamaanna wax wanaagsan u arkaayo birina loo imaanayo haddana laga sii qaadahay nin ceynkaas haddaan aragna maxaan dhihi lahayn ma doqon baa mise waa caaqil ma caaqil baa qofkaas mise waa doqon waxaan u malaynaya hadalkayga ayay dadka fahmi laayihiin oo la garan laaya qofka ceynkaas ah ma qof caqli qabaan oran lahayn mise waa qof aan caqliba qabin ninkii walaalkii ah oo dhinaciisii jooga oo arkaaya aanna ka qabanaya nina maxaa la dhihi walaalkii oo la joogo oo garab joogo oo waxaanoo dhan arkaaya walaalka oo lacagtiisa iyo dahabkiisa iyo dollarkiisa laga qaadanaya ilmihiisana sun la siinaya suntii ilmihiisa la siinayana ku faraxsan dhaqaalihiisana lala tagi haddaan aragna xaaladiisa dadkaan fiirsanaya ma dad wanaagsan baa oo tol iyo ehel iyo qaraabo miya mise waa dad cadow waa lagu tilmaami karaa waa cadow okay bulshadeenna soomaaliyeed oo dhulka joogta weliba dhulka aan joogno arrintaa ma jirtaa mise ma jirta walaalayaal bilaahi calaykum ma jirtaa arrintaas mise ma jirta xaggeen ku maqanna maxaan u fiirsanaynaa dowladdeenni sooma joogta culammadeenni sooma joogaan caaqiliinteenni sooma joogaan dhallinyarteenni wax fahmaayeen sooma joogaan cadow waxay nala doonayaan cadowga islaamku waxay nala doonayeen dhallinyarteenna maskaxdooda in la laayo xoolahana laga qaata dad shahwaaniyiin oo hawo un iska daba socda ay noqdaan mustaqbal ummadeedna aanan yeelanin ayay nala doonayeen sidaa darteed baa arrimahan noola isticmaalahaya meel walbaa laga soo maalgelinaya daroogadaas ayada ayaan hore waxaa dhacday daroogaa ka imaana jirtay waddanka annagaan ka imaadnay oo Kenya waa la istaaji waan ku faraxnay cid kastaba ha ka naxday annaga waan ku faraxnay laakiin sidaan u faraxnay haddana waxaan xumaanay daroogadii tiibto kale marka lagu bedelayo ayadana waddanka la soo geliy waan ka xumaanay ele laba daroogo way maxay isku dhaamaan
ومصيبة كلا وحن لنا ومدينا الله بركايا جدك توصلنا الله تسيء ددك أنت وناقة كشقين يصدق بس عطنا الله كديك